madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abiy Ahmed ayaa la filayaa dhawaan inay gaadhaan caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Booqashadani ayaa imaanaysa kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ay usbuucii hore kulan ku yeesheen caasimadda waddanka Itoobiya ee Addis Ababa. kulankaasi kadib madaxweynaha Soomaaliya ayaa raaligelin iyo cudurdaar rasmi ah ka bixiyay xasuuqii dowladii Maxamed Siyaad Barre ay ka geysatay gobolada waqooyi ee Somaliland. anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaar ka sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi idinka ila qaadataa. sanadii 1986 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Hargeysa iyo Berbera, waxaana markaasi uu xariga ka jaray garoonka caalamiga ah ee Cigaal International Airport. waxay markaasi ahayd markii ugu dambeysay oo madaxweyne Soomaaliyeed uu tago gobolada waqooyi Somaliland. gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa 1991 ku dhawaaqay inay Soomaaliya inteeda kale ka madax bannaan yihiin, waxayna muddadaasi ay raadinayeen ictiraaf. 34 sano kadib waxaa Hargeysa ku beegan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna noqonaysaa booqasho taariikhi ah. golaha wasiirada ee Somaliland ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay soo jeedin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo jeediyay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay booqasho ku yimaadaan magaalada Hargeysa. dhanka kale gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Somaliland ku cadaadinayo in isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya wada yimaadaan Hargeysa. Salebaan ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland ka diiday codsiga ra'iisul wasaaraha, balse Abiy mar kale ku soo celiyay codsigaasi. gudoomiyaha ayaa sheegay in ayna ogolaanaynin in Farmaajo oo madaxweyne ahi yimaado Hargeysa. hadduu la yimaado bedeli mayno, laakiin madaxweyne uma ictiraafsanin nin Soomaaliyeed oo abel la socdo ha noqdo, laakiin inagu waa adeero hanooyno weeyi aboolatina muu bixin.